xasan sheekh maxamuud oo ku jira maalmihii ugu dambeeyay ee xukunkiisa ayaa waxa uu ku howlan yahay sidii uu soo afjari lahaa Somaliland. Korinta colaad ka qaraxda gobolada galbeedka Somaliland ayaana ay juhdi badan ku bixinayaan Djibouti, Soomaaliya iyo Itoobiya. haddaba maxaad kala socotaa Muqdisho iyo Djibouti oo u midoobay sidii ay uga takhalusi lahaayeen nabadgelyada iyo xasiloonida Somaliland. dhinaca kalena Somaliland ayaa qaadatay siyaasad ah muujinta weji wanaagsan oo cid walba lagu soo dhaweeyo, waxaase ay lumisay xulufadii dhinaceeda difaaca kaga jiray. shuraakada uu xasan sheekh maxamuud hogaaminayo ayaa waxa ay heshiis ku yihiin in laga takhaluso dawladda Somaliland ka jirta, iyadoo khayraadka geyigan ceegaagana la kala qaybsanayo, dadkana la isku jeedinayo oo hubka la isugu dhiibayo. waa ujeedooyin waaweyn oo ay dabada ka riixayaan qaar ka mid ah wadamada dunida isu bidaya awoodooda, balse rajada ay libin ku gaari karaan shuraakada Geelle iyo xasan sheekh maxamuud ay hogaaminayaan ayaa yar, maadaama uu muddaxileedkii madaxweynaha Soomaaliya uu sii dhamaanayo, mucaaradad xoogganna uu la kulmayo oo muddo 30 casho oo kaliya uu haysto. dhinaca Somaliland ayaa u muuqata inay jahaynayso oo weli aanay u fadhiisanin macaamilka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland. xukuumadda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaana ay hindistay samaynta saaxiibo cusub iyadoo saaxiibadii hore la sii haysto, sidoo kalena waddan kasta oo Somaliland cadow ku ah in la soo dhaweeyo oo weji wanaagsan loo muujiyo, waaba intaasoo ay wax badan iska bedelaan aragtidiisa. balse natiijooyinka hordhaca ah ay muujinayso shaqada diblomaasiyadeed ee Somaliland ay waday sanadkii ugu dambeeyay ayaa ah inay ka fogaatay wadamadii shuraakada ay ahaayeen, sidoo kalena diblomaasiyadda saaxiibka ku ahaayeen kuwaasi oo qaarkoodna lagala hoos baxay, halka qaar kalena ay ka shakiyeen wadamada aanay isjeclayn ee ay Somaliland soo dhaweysatay. Itoobiya waxa ay ahayd saaxiib muhiim ah oo ay Somaliland leedahay, balse haatan ma aha ee waxa ay ku jirtaa shuraakada xasan sheekh maxamuud hogaaminayo ee heshiiska ku ah sidii Somaliland looga samayn lahaa colaado sokeeye iyo burbur. tallaabadaasi oo ujeedada ka dambeysana ay tahay sidii khayraadka dihin ee deegaamadani ay leeyihiin loo kala qaybsan lahaa. xasan sheekh maxamuud ayaa ila wareedyadu sheegayaan inuu marsooyin caalami ah oo Somaliland ku yaala siiyay oo u saxeexay waddanka Djibouti, halka uu qaar kalena doonayo waddanka Masar inuu qaato, kaasi oo doonaya laba dal oo ku kala duwan aragtida geeska Afrika inuu cagaha u geliyo Somaliland. waana sababta keentay Itoobiya inay rajadeedii badda dib u soo noolaato, iyadoo oo doonaysa qalalaase iyo dagaallo inay ka samayso gobolada galbeedka Somaliland si ay ugu soo dhex karto. inkasta oo qorshahaasi sida uu u guuleystaa ay adag tahay, maadaama oo dadka reer Somaliland ay yihiin dad soo jeeda, sidoo kalena ilaashanaya khayraadka iyo dhulka dabiiciga ah ee ay haystaan. madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geellena waa sababta hunguriga gelisay in Saylac waddankiisa uu ku darsado iyo gobolka Selil, isagoo eegaya marsadu meesha ay ku taalo iyo sida ay taariikhiga iyo istiraatiijiga u tahay. Shiinaha isaga dagaalkiisu waxa uu salka ku hayaa sidii aanay Somaliland u jirteen, maadaama oo ay ka soo horjeedo gacsaarna la leedahay Taiwan. Turkiga waxa uu quudareynayaa marsooyinka caalamiga ah ee Somaliland ku yaala iyo khayraadka dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay inuu qaybtiisa qaato isagoo aan u danaynayn Soomaalida, balse eegaya danihiisa iyo faa'iidooyinka uu isagu helayo. waana shuraako wada socota haddana kala socota oo danaha ku kala duwan, balse waxa ay heshiis ku yihiin in dawladda Somaliland ka jirta la soo gabagabeeyo. waxaase ka dibay isku dayo badan oo ay ku doonayeen inay Somaliland kaga abuuraan colaad sokeeye iyo qalalaase ay ka soo waaqsan weyn. xasan sheekh maxamuud ayaa saacadu ku socota waxaana ka dhiman waqtigii uu xilka ka degi lahaa bilo kooban. siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya oo ku kulmay toddobaadkan aynu ku guda jirno magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay soo saareen 17 qodob oo ay ugu digayaan madaxweynaha Soomaaliya ee xilku ka sii dhamaanayo xasan sheekh maxamuud. waxayse u muuqdaan inay laga jalaqsan ka helin dhinaca xasan sheekh maxamuud, sidoo kalena haatan fiilla Soomaaliya ay u muuqato dawladda shisheeye inay kursiga ku sii hayn karaan. taasina waxa muujinaysa socdaalkii madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tagay magaalada Addis Ababa isaga oo la soo kulmay ra'iisul wasaaraha waddankaasi, waxaana uu ballan qaaday inuu siinayo marsooyin caalami ah oo ay Itoobiya ku taamisay ama se ku riyoonaysay boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay. balse Abiy Ahmedna uu kursiga la dhiciyo isagoo ka difaacaya mucaaradka oo ku soo jebiyay.
isku day kasta oo uu sameeyaa ma noqon doono kii xalka u noqonayay si joogistiisa Soomaaliya iyadoo golaha midnimada mustaqbalka Soomaaliyana ay qorsheynayaan sidii ay dawlad cusub ugu dhawaaqi lahaayeen oo looga dulguuri lahaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo qorshaha uu ka wada magaalada Muqdisho muddo 30 casho ah oo ay u qabteen haddii uu ku soo jawaabi waayo waxaana ay u muuqataa Soomaaliya inay qarka u saaran tahay khalkhal siyaasadeed iyo burbur haddii ay isku jeesatana Somaliland waxa ay ka nafisaysaa dagaalka joogtada ah iyo fadqalalada had iyo jeerba ay fiila Soomaaliya ku hawlan tahay sidii ay uga abuuri lahayd deegaanada Somaliland inkastoo ilo wareedyada qaarkood ay xogaal helaysaa ay sheegayaan in amarada qaarkood ay ka soo baxeen waddanka Djibouti isagoo shaarkii Soomaaliya sita waxaana ka mid ah dagaalada Somaliland ay Djibouti ku soo qaatay ee sida weyn loogu eedeynayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle cunaqabataynta ay Soomaaliya isku dayayso inay dhinaca badda ka samayso taasi oo la doonayo in lagu curyaamiyo marsada kobcaysa lana tartamaysa marsooyinka geeska Afrika ee Berbera